السلام عليكم. داود من لغو سو رغا عشور ادو بدن ama lagu yiri cashuur aadan filayn bixi haddaba samee sida uu sameeyay ninkan aan ku daawan doonaa barnaamijkan fadlan haddaad ku cusub tahay channelkan subscribe saar kuna soo dhawaada barnaamijka dhammaystiran muwaadinkan u dhashay Mareykanka ayaa wuxuu ku fikiray markii cashuur aad u badan ay dawladdu dul saartay inuu asagana khiyaameeyo ama uu dhibo dawladda waxa uu sameeyay ama uu ka dhigay lacagtii $3,000 ahayd inuu ka dhigo shilmaad kuwaas oo ka koobnaa 1 shilin 5 shilin iyo 10 shilin waxa ka sii daran inuu isku qasay lacagtii saaran oo halkii 5 shilin oo uu soo kala bixin 1 shilin 5 shilin 10 shilin uu soo kala bixin balse isku qasay kadibna iyadoo isku qasan uu geeyay meesha wuxuu sii diidanaa hadduu hal shilin uu kala saaro ama 5 shilin meel dhinac isku marin yani ay kuwa dawladdu ay miisaanka u saara marka bas lagu ogaado marka waxay sababtay taas sida awgeed inuu shanta gaari gacno ku soo kala qaaday inay noqoto lacagtii 100,000 oo bir yar ama shilmaad ah oo ka kooban 1 shilin 5 shilin iyo 10 shilin wuxuu ninkan sababay inay dawladdu ku bixiso ama dadka cashuurta wasaaradda cashuuraadka ku bixiso tirinta lacagtaasi muddo 10 habeen iyo 10 maalmood sida idin muuqata ninkaas wuxuu ka doorbiday meeshuu ka geyn lahaa lacag nooc kala ah inuu geeyo shilmaad saawgeedna wuxuu bixiyay lacagtii lagu lahaa ama cashuurtii laga rabay ee la dul saaray meeshuu ninkan ka geyn lahaa lacag dollar ah oo ku bixin lahaa lacag dollar ah ama uu ku bixin lahaa kaadh ahaan oo lacagtiisa online uu bixin lahaa ama uu ku bixin lahaa habka loo yaqaan check ninkan wuxuu ka doorbiday ama uu dawladda ku dhibay inay tiriso lacag aad u badan oo shilmaad ah dawladdan waxa kaga baxay kharash kale iyo waqti badan inay tiriso ama ay xisaabiyaan inay sax tahay iyo in kale iyo kala saarkii lacagtii la kala saaray sababtoo ah ninkan wuxuu isku soo dardarisna hore idin ku sheegnay 1 shilin 10 shilin iyo 5 shilin qofna ma awoodin ilaa uu la kala saaro maahine inuu xisaabiyo marka ninka Mareykanka uu fikiray ayuu keenay ra'yiga inuu yani dawladda wareeriyo sidana uu kaga guuleysto haddaba sida idin muuqata ninkan wuxuu keenay 5 kaariyoon ama gaari gacan oo ay ku jiraan lacagtii shilmaadka ahayd oo uu keenay cashuurta fadlan daawada dadku cusub tahay channelka subscribe saar lana soco barnaamijyada soo socda insha Allah